بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u hambalyeeyaa shacabka reer Puntland ka Soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan. waxaan u hambalyeeyaa ciidda Ciidul Adha. waxaan leeyahay ciid wanaagsan anigoo ka faa'iideysanaya hambalyadaas waxaan raacinayaa in shacabka reer Puntland guud ahaan ay abaar jirto abaar xumi ay jirto. waxaan dadka codsanayaa culimada ganacsatada iyo dawladda guddiyaal samaysay oo maxay ahayd hadda ku hawl jirta in la iska kaashado oo dadkaas muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee reer Puntland abaaraha runtii laga caawiyo wixii karaana wax looga qabto hadday biyo tahay hadday cunto tahay xoolihii iyo dadkiiba aad iyo aad bay u jilicsan yihiin. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoogu naxariisto dadkaas boqolaalka kuna ee maanta taagan xajkii taagan fadligooda in ilaahay inoogu naxariisto oo raxmad degdega inoo shubo. waxaan kaga faa'iideysanayaa munaasabaddan inaan sidii caadadu ahayd hay'adaha amniga oo ciidamadu ugu horeeyaan runtii inay amniga laabaan oo dadaal dheeraad muujiyaan anigoo og duruufaha ay ku shaqaynayaan. waan u hambalyeynayaa ciidamada iyo xaasaskooda runtii hambalyo dheeraadaan u dirayaa. ciid wanaagsan baan leeyahay. amniga siday u adkeyn jireen inay u adkeeyaan. waan la socdaa duruufaha abaarta dhaqaale xumida intaasba iyagoo maxay tahay ku shaqaynaya. waxaan leeyahay guulaysta si laaba shaqada aad haysaan. sanadkan sanadkiisa inuu barwaaqo iyo bashbash ilaahay inoo gaarsiiyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa. waxaan ilaahay ka baryaa in uu abaarta inaga jabiyo cudurrada inaga qaado inagoo sanadkiisa inagoo caafimaad qabno barwaaqaysan inuu ilaahay iskeen gaarsiiyo. aad iyo aad baad u mahadsan.